الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي جميعا، waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa. waxaa jirta cabsi badan idaacad kastood furto iyo wax qoran oo kastood akhrido iyo labadii wax isweydiinaysa ama ay sarkaan ama xiriiraan ama isu qoraan TV iyo warbaahintii kastood dhageysatay waxaan laga hadlayaa cudur dhacay oo dad ku dhacay dhib badanna bini aadamka ku haya, diyaaradaha dadka la raacaya, qaaradaha u kala gooshaya, luuq kasta galaya oo la moodayba meel looga baxsanba inayna jirin. nin baa wuxuu yidhi afrikadu markay xanuunsadaan xaggaa yurubtay u carari jireen, iyadii buu ka soo bilaabay. hadda meel loo carari lahaaba balaho nin wala waxaad ka cabsanaysa gurigaaga fadhi waay. cabsida intaa la eg ee jirtaay waxna waa ka run, wax badanna waa ku dardar. wax badanna waa ku dardar, waxna waa ka run. waxyaabo badan baa habboon inaan isxasuusino si kooban qofka muslimka ah. qofka muslimkii iimaankeenna waxaa ka mid a in qadar ilaahay oo hormaray uu jiro. waxaan la qadarinna dunidan kama dhaco, khayr iyo shar labadaba. waxaad jeceshahay iyo waxaad necab tahayba. waxaa laynagu soo tababaray arkaanta iyo tiirasha iimaanka inay ka mid tahay wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacaala. ilaahay baa qadara, horeyna u qoondeeyey dhib iyo dheefba, khayr iyo sharba. saas darteed wixii ilaahay qadaray unbaa dhici. wixii ku anfacaya ciddii ilaahay u qadaray baa badbaadi, ciddii ilaahay u qadarena dhib baa gaari, ama kan ha noqdo ama mid kale ha noqde. laakiin iimaanka qadarka waxaa muhim inaan ogaana waxaa ka mid a innagu waxa qadareen ma ogin. allahna inooma qeexinoo waa inaga qariyey lixikmatin isagu araadahaa subxaana. haddaan isku daynaan daydayna waxa inoo qoran mustaqbalna ma ogaan karno. waa wax awoodda iyo aqoonta aadamaha ka baxsan oon looguba talagelin. way qoran tahay oo cirkiya dhulka intaan la abuurin 50,000 oo sano ka hor baa wax walba la sii qoray. saa darteed buu nabigu yidhi ruficat ilaqlaamu wajafat isuxuf. qalankii qorayeyna waa istaagay, waraaqihii lagu qoray qaddii ka qoyanaydna waa qallasho, waa ingegtay. qadarkaa qoran ee khayr iyo shar ah, ilaahay qaanuunka dunida uu u yeelay asbaab bay leeyihiin. dhibkuna asbaab buu yeeshaa, dheeftuna asbaab bay yeelataa. qofkii dhibka lala ku dhici doone u qadaran yahayna asbaabteedii buu qoorta la galaayoo jiiraa. qofkii khayr u qadaran yahayna asbaabteedii buu maraayoo la waafajiyaa. saas darteed baa lays amray asbaabta inta muuqatee la garanaya dhibka keenaysana ha layska ilaaliyo. asbaabta khayrka iyo nabadda iyo badbaadada keenaysana ha lagu dadaalo. innagu dadaal baa ina faran, wixaan dhib ahana inaan ka taxadarno sida allahu yidhi wakhuduu xidrakum. waxaa kaloo ina faran wixii khayr iyo wanaag iyo badbaadaha asbaabteeda inaan ku dadaalno. laakiin intaas kadib wixii ilaahay qadaray unbaa dhici. in haddii wax dhacaan ama aad khayr hesho ama dhibku soo gaaraan aad ogaato marna inaadan ka fursateen, asbaabtii badbaadadana aadan la wada iman. kollaba asbaabaad samaysay oo dhibkan keentayna ay jirto. asbaabta ugu weyn ee dhibka badan keentana waxaa ka mid ah dunuubta iyo macaasida, ilaahay amarkiisoo la diido iyo aadamahoo la edbinayo baa ka mid a. ibtila iyo imtixaan kalena way u timaadaa. saas darteed yaynan isdiidin in dadaal iyo asbaabtana la sameeyo. iimaankii qadarka ee qornaa ee la rumaysnaana aynan isdiidayninoo asbaabta lafteeda qadarkii ka mid a. qofkii ilaahay ugu talagalay inuu ilmo siiyo guur baa la waafajiyaa.
weli ma aragteen ilaahay wuu awoodaaye qof ilmiya carruur yeesha ciise hooyadii kadib isagoon guursanin oon reer iyo marin aadam iyo ciisaa jira saa darteed baa ilaahay israaciyo inna mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadam qaanuunkii taranka aadamaha loogu talagalay bay ka duwan yihiin labadoodu aadamaha inta kale ilmo inaad dhali doonta iyo in kale waa qadar saabiqa dadaalkeedaa lagu waafajinayo doonistii ilmaha kadib baa lagu siin qadarkaa asbaabtala weeye adduunyadu asbaabtuna iimaanka qadarkay ka mid tahay asbaabtuna waajibaadkay ka mid tahay wixii halaagii in laga fogaado wixii badbaadadana la sameeyo ismana diidayaan qadarkiina in la rumeeyo asbaabtiina la qaato laakiin waxay ku anfacaysaa haddii dhibku dhaco wax qadaraayoo dhacay oo sabir iyo sida lagaa rabaan khudbadii jumcadii hore ku soo sheegnay qodobka labaad ee laga doonayo haddii waxaan oo kale yimaadaan qof walba wuxuu rabaa inuu sheega maaha wax kastood aad dhegtaa ka soo baxana dhegta kale inaad ka sii bixiso weeye wixii aan wax sal oo la taaban kara lahayn nabigu wuxuu markan oo kale ina faray kitaabka iyo sunnadu ina fareen warkanuun la wada daldalayo wuxuu yahay aan la hubin wuxuu yahay aan la garanaynin in laga fiirsado nabigu wuxuu yidhi kafaa bilmari kadiban an yuxadida bikulli maa samic beenaalannimo waxaa kuugu filan waxaad maqashaba inaad sii sheegto oo dhegtaadii iyo afkaagu isu furraadaan meel dhexoo wax ku hakadaba aanay lahayn wixii dhegta ku soo dhaca ama ishu aragtaba horaan u sii dayni arrintaas lama ogola waayo beentaa badan huhaadaa badan dacaayadaa badan khaakhulkaan jirin baa badan talooyinka caafimaadeen saliya raad lahayn ee dadka ku socdaa badan waxbaa kuwa codsoo duubi qoraal baad meel ka akhriyi tiiviyaad meel ka daawan kan hadlaya ma taqaanid waxa qoray ma taqaanid meeshan waxay tahay ma garanaysid mid dadkaba baabi'inaya ahaayaana war uma haysid haddii tala dad anfacday adigana ay ku anfacaysa caafimaad maaha dadku kala caafimaad duwan kala duruuf duwan qof walba qiimayntiisii iyo qaab buu leehay saa darteed in talada dadkeedii laga qaato hadday caafimaad tahay jihaadkeedii sugnaa ee rasmiga ahaa in dadkeedii yaqiinay laga qaato dadkii wixii yaqiinay ee aaminka ahaana aqoontoodii dadka ay u sheegaan ilahi wuxuu yidhi waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw ilkhawfi adaacuu bih dadka waxa uu dabeecada haddii war yimaado nabadoo lagu farxo ama laga cabsado saasaa loo wada shaacin oo lasii wada dayn waxaana laga rabay dadkooda madaxda iyo dadka garanaya inay u daayaan oy ka sugaan wixii intii la kala shaandheeyo wixii saxaya wixii khaldan dadka loo kala saaro ha ka qayb qaadanin waraan la hubin qaybintiisa waxaadan hubinna ha qaadanin talooyin wax yidhi aadan aqoon meelay ka yimid aan garanaynin biyahaas cab geedkaa ismari waxaa cun waxaa isku dhoob waxaa samee yaa yidhi ma taqaanid cod baan maqlay ma wax lagu saleeyaa oo ka bannaankaa jooga hadduu ku yidhaahdo anaa dhakhtaroo ku qali ma yeeshide kanaabaad aragtaaye ku aadan arkinba oodan aqoonin warkiisa baafinta ha laga daayo adna ha qaybinin adiguna ha qaadanin talooyin aan dadkii mudnaa ka iman cid la reed raaci kara aan ka iman wax lagu kalsoonaan kara aan ahayn waxaan ul iskala wada yaacayo rag iyo dumarba yar iyo weynba nin walba wax aqrinayo halkan nin baa iska istaagay wuxuusan aqoon buu ka hadli wixii laga hadlayo dadkeeda ha loo daayo ahlu dikrigeeda wixii masalo diinana dad baa leh wixii caafimaada dad baa leh dadka yaqaana ee aaminka ah ee lagu kalsoonaan kara warkooda ha la qaato waxa kale lafdinayna ha la iska daayo waxaa saddexaad ugu dambeeyahay markay dhibaatooyin yimaadaan rabbi baa loo tadarrucaa rabbi baa loo noqdaa rabbi baa loo towbad keenaa isagaa dunidan maamulo amarkiisu kun fa yakuunu yahaye isagaa la baryaayoo la weydiistaa waxaan u baahannahay inaan towbad keenno waxaan u baahannahay ilaahay inaan barino waxaan u baahannahay camalka saalix iyo khayrka inaan badinno waxaan u baahannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku-xidhnaanshihiisa inaan badinno dadku waa laba buu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay markay dhibaato waaweyn intay timaaddo ama cabsi badan timaaddo in ilaahay u soo noqota oo towbad keento inta iimaanka iyo khayrka lahayda iyo in qalbigoodu ingegay oo waxaan macno lahayn ku mashquulo oo towbadii iyo cibaadadii iyo allabarigii ka mashquula falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu
ciqaab iyo dhibaato markay timaadiyo waxay ka baqaan iyo cabsadaan ma ilaahay u soo noqdaan ma ilaahay u soo laabtaan ma ilaahay u khushuucaan ma ilaahay baryaan walaakin qasad quluubuhum laakiin qalbigii baa ingegay wazayana lahum shaytaanu maa kaanuu yacmaluun waxaa tawba iyo tadarruc la'aanta ay ku mashquulsan yihiin baa shaydaanku u qurxiyey maantoo dhan qiila waqaalaad ku jirtaa masaajka haddii la fadhiya xaataa qur'aan lagama akhrisan karo kan ma aragtay buu nafta kaa qaadi rubuc jus qur'aana ma akhrisan kartid waxay ahayd inuu qur'aan akhristo inuu ilaahay baryo inaan si wada jir ilaahay u barino keli u barino adkaarta iyo ducada loo baahan yahay baranoon akhrina bay ahayd waxaan kale hawaska aan ku mashquulsannahay aad haysu raacinin taqwada iyo tawbada buu ilaahay makhraj laga baxa kuu samayn taasuu ijcal lahu min amrihi yusran arrinta kuu sahli si guud iyo si gaar ahaaneedba intaas aynu samayno khayr allah idin siiyo waa waqtiga ilaahayna baryi lahayn ilaahayna ku xirnaan lahayn waqtigaynu kala carari lahaynna ma aha ilaahayna balaayo aan ugsii kala cararno ilaahay naga hayo fitan iyo masaa'ibna ilaahay muslimiinta dhan allaha ka hayo si guud ahaaneed innagana si gaar ahaaneed allah inaga badbaadiyo intaas kadib si asbaabtii qaadashadeedii iyo ilaalintii masaajidda ahayd waddankani weli waxaynugu qasbay masaajid inaan xidhni ma jiro wax masaajidu hadda xera layna yidhi ma jiraan haddii amar ka weyn kor inagaga yimaada dee mukrahu naqaaka laa batale dee khiyaarba kuma furna haddaan la isqasbin sidaad warbaahinta ka maqlayseen insha allahu masaajideennu meelo badan baa la xiray way inoo furaan doonaan laakiin waxaan u baahannahay dadaal inaan samayno asbaabtii qaadashadeedia saas darteed talooyin badan baa la bixin doonaa hadday noo suura gashana takhaatiir waa idiin keeni doonaa haddii alla yidhaahdo dadka talooyin ka bixiyo wixii su'aalo aad qabtaanna aad weydiisaan mararka qaarkood laakiin salaadda markaan tukanno insha allahu tacaala baan ogeysiisyo muhiim oo dhowra bixin doonaa qayb ka midana waxaa ka mida musqulaha iyo weysada masaajidka waa la xiri doonaa guryaha laga soo weysaysan dayactirna way u baahnaayeen taangigiina xiriirintiisi way socotaayoo bannaanka waa arki doontaan tanna waa inugu soo korodhay dhagax iyo dhowr shimbirood wey wakhtiyada masaajidka furnaanayana waa la yarayn doonaa salaad baa loogu talagalay wax yar ka hor salaaddana waa la furi doonaa wax yar kadibna waa la xiri doonaa inta udhexaysana masaajidda waa la buufin doonaa si wixii un jeermisa asbaabtii iyo dadaal loo sameeyo saas darteed waa la soo dhejin doonaa wakhtiyada la furayo iyo la xiri doono waxaan rajaynaynaa in la ilaaliyo si nadaafadda loo ilaaliyo waxyaabaha biyaha laga cabiya qashinada meelo lagu guraan soo dhigi doonaaye jidkayaan lagu daadinin jirdiinooyinkan ayaan la dhigin meeshaa loogu talagalay qashinadaan dhigi doono masaajidka daarayrihiisa nilow biyaha iyo markaa ka dhammaysatay tiishka iyo waxyaabaha wasakhda ah meesha ha lagu rida khayr allah idin siiyo talooyinka kabaha meelaha loogu talagalay ha la dhigo ciddii ama xanuun iska dareenta ama markii horeba cabur iyo wax dhibayey ama iskaba cabsata ama la yidhi dadka waayeelka waa u sii daran yahay guryaha way isaga tukan karaan qofkii xanuunkaa inuu calaamadaha iyo iska shakiyana dadka inuusan gurigeedu isaga tukadaa u furano saasaa la door bidayaa khayr allah idin siiyo hadduu meel gaara bannaanka masaajidka kaga xiranayana sharciga wax diidayaa ma laho kuwa judaan qabaa meel bannaana kaga xiran jiray xilligii ay a'immadii iyo fuqaadii hore joogi jireen calaa kulli xaal talooyin badan baa la bixin doonaa dad badan oo masaajidka shaqaalihiisii iyo dad kaleoo mutatawiciin oo fii sabiililah uga qayb qaadanaya abbaa tilmaamay bixin doonaan inaan ismaqallo oo la isdhegaystana waa soo jeedin doonaa waa soo jeedinaynaa khayr allah idin siiyo intaana intii muhiimsan ogeysiisyada weeye duruustiina waa la fasaxay jazaakum allahu khayran subxaanaka allah waxamdika allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم لمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة